السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأنا سلام يا دمانتي مeel kasto aad adduunka ka joogtaan. waxaan jeclahay inaan idin la wadaago ololihii lacag caruurintii walaasheen Aamina Cabdullaahi Cumar Aamina Dool oo ku xanuunsanaysa London in aan soo gabagabeynay. sidaan hore idinku sheegay baa waxaa jiray dad lacag gaar ah rabay inay ku darsadaan oo horey nooga ballan qaaday inayna soo gaarsiiyaan. lacagta waxay noo soo ururtay maalintii Khamiista ahayd. awal waxaan hayay $8,000 waxa ku soo darsantay $1,130 totalka waxay noqotay $9,130 intaanan lacagta shalay oo jimco ahayd aanan dirin ayaa gabar iga soo wacday magaalada Brisbane ee gobolka Queensland isla dalkan Australia. gabadhaas waxay ku soo dartay $501 lacagtii total waxay noqotay marka $9,631 Australiaanka ah. lacagtii shalay oo jimco ahayd ayaanu xawilnay xawaalada Taj ee Melbourne gaar ahaan Heidelberg xaafadan hadda aan joogo. waxana ay noqotay marka dollarka Mareykanka loo bedelay macala xawaaladeeda iyo sarifka lacagta Australiaanka ee Mareykanka $7,000 oo dollarka Mareykanka ayaa la gaarsiiyey London. lacagtaas gacanta ayaa lagu hayaa. Aamina Cabdullaahi Cumar Aamina Dool way ogtahay, waa loo sheegay, waxana ay sheegtay inay cusbitaal ku jirto oo markay ka soo baxdana ay lacagteeda gudoomi doonto. waxaan rajaynayaa insha Allah in markii ay gudoontana ay noo soo gudbiyaan video clip oo ah iyadoo lacagta la gudoonsiinayo maadaama is-aaminaadii meesha ay ka baxday. waa nasiib daro, aad baan uga xumahay, laakiin waxaan si gaar ah ugu mahad celinayaa runtii dadkii igala shaqeeyey lacagtaas kooban aynu soo aruurinay. inkastoo dad koobanna aan ka soo qaadnay Melbourne oo dhan kama qayb qaadan. jaalida aad bay u ballaaran tahay, lama gaarsiinin baaqa sidii la rabay. qaraxii Zoba ayaa nahakiyey. Amal iyo Xabiiba aad bay u mahadsan yihiin, waa gabdhihii igala shaqeeyey barnaamijka oo xoog geliyey oo waqtigooda u huray in ay maaragtay gabadha walaashooda Aamina Dool ay lacagtaas u soo aruuriyaan. waxaa sidoo kale aan si gaar ah ugu mahad celinayaa iyagana Khatra Bashiir gabadha la yiraahdo waxay keentay keligeeda $2,500 oo Australian ah. asxaabteeda iyo ehelkeeda ayay ka soo gurtay. iyo gabadhii u dambeysay haddaan idiin sheegay oo Brisbane joogtay iyadana $501 keentay. waxayna magaceeda ku soo koobtay qurux dumar. waxaa lacagtaas la soo aruuriyay $500 ah aabaheed. gabadhaas iyo aabaheedna aad bay u mahadsan yihiin, magaalada Brisbane ay degayn. dhankayga lacagtii shalay oo jimco ahayd oo taariikhduna ay ku beegneed 3 November 2017 ayay soo dhaaftay. waxaan sugnaa un marka Aamina Dool loo gudbiyo lacagtaas oo iyada gacanteeda lagu sallimo in cliptaasna loo soo diro. intaas ayaan jeclahay inaan ku soo koobo. haddii aad jeceshihiin marka inaad ila ogaataan Aamino cusbitaal inay ku jirto lacagtina ay og tahayna waxba dhib iguma aha. halkan ayaan jeclahay inaan si toos ah aan u waco Aamina Dool. السلام عليكم walaashay Aamin waa ku salaamaysaa tahay. waa fiicana alxamdulilah, allah ku caafiyo. waan fahmi karaa inaad xanuunsan tahay. aniga waqti dambe ii tahay waxaan duubayay cliptii ahayd in maaragtay lacagtii aan soo gudbiyey adigana cisbitaal aad ku jirtid oo aad sugayso markaad ka soo baxdo inaad la wareegto. marka adaan kuu dhaafay markaad soo baxdo wac ragga lacagta ku hayay. markaa ka gudoontidna walaal video soo duub oo ah in lacagtii aad heshay. dadkii ka qayb qaateen ayagaa kuu sheegaya, usoo duceey. khayr baan ku rajay, allah ku caafiyo. aamin abo anaa la hadlaya abuukar waa u sheegay. maanta hadda dhakhtarkaan joogaa, galabtana kii kalaa la geenaa dhakhtar kale. berri aan firaaqa leeyahay, berrito anaa isaga waxaaya markuu ii keenan anaa ummadda banaanka usoo dhigaya abo. aad baad u mahadsan tahay. intaas aniga waan duubtay, waayo wixii dhan ba aaminaadii iska xumaatay nasiib daro. marka dadka inaan la wadaagano waa ii ogoshahay, waan kuu sheegay inaan duubay. saas oo la socdo. waa mahadsan tahay. السلام عليكم. waa mahadsan tahay Aamina Cabdullaahi Cumar Aamina Dool oo London joogta oo cisbitaalka ku jirta ayay ahayd oo lacagtii og in ay helayso oona dadkii u hayaan. aniga intaas ayaan uga baxay.